bismillaahi raxmaani raxiim. soo dhawaada, waxaan bilaabaynaa cashirkii 46aad. cashirkan waxaan ku qaadan doonaa 4 erey oo uu ka bilowdo xarafka u. marka isla socod wanaagsan insha allah. haddaan ku horeeyo ereyga koowaad, wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood. qaybtan hore waa u, qaybtanna waa lo. muxuu isku noqonaa marka u lo, ulo, 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 ulo. macnaha waa jamac. ul, hal ul, ulo badan. okay, ereyga labaad wuxuu ka bilaabana asna u. qaybtan cagaarka waa ba, qaybtan buluugana xa. muxuu isku noqonaa marka u ba xa, u ba xa, u ba xa, ubaxa, 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 ubaxa. ereyga saddexaad asna 2 qaybood uu ka kooban yahay, laakiin waa shaqal dheer uu ka bilaabana. oo waxaan leenahay uu, qaybtanna mi. muxuu noqonaa marka uumi, uumi. qaybta ugu dambeyso ama ereyga ugu dambeeyo waa asna waa uu, qaybtanna maxaa waaye oo buluuga ah. laa, qaybta cagaarkana we. muxuu noqonaa marka uu laawe, uu laawe, uu laawe. marka waxaan rajeynaa inaad fahanteen. cashirkan waa qaybtii ugu dambeysay ee cutubkeenii 5aad. insha allah cashiro kale intaan bilaabeynaa. la socda cashirka 47aad. guulaan idin rajeynaa dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.